ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ayaa habeenkii xalay gacanta ku soo dhigay nin gacan ku dhiigla ah oo dilay xaaskiisii oo la oran jiray Farxiyo Daahir Aadan da'deedana lagu sheegay inay tahay 18 jir. Dilkan oo dhacay maalintii shalay ayaa gacan ku dhiiglaha waxa la oran jiray Maxamed Axmed Xirsi waxaana la sheegay inuu doonayay inuu baxsado markii ay ciidamada boolisku gacanta ku soo dhigeen. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska ee gobolka Togdheer Deeq Cali Aadan oo ka hadlayay falkan dilka ahaa ayaa ka warbixiyay sida ay gacan ku dhiiglaha u soo qabteen. maanta oo bishu ahayd 10kii bishii shanaad 13 abaaro salaadii duhur jimcaha markii lagu jiray ayaa gacan ku dhiiglay Maxamed Axmed Xirsi waxa uu dilay xaaskiisii oo la yiraahdo Farxiyo Daahir Aadan ilaa intaana waan ku daba jirnay magaalada dhexdeeda iyo maxaan ku lahaa dibadeedaba iyadoo waliba ay gacan siinayaan xigtadiisii isaga xigtadiisii ay gacan siinayaan oo nagala shaqeynayeen amar xaasil gacan ku dhiiglaha waxaanu qabanay caawa isagoo iyadoo la doonayay in caawa magaalada laga saaro ayaanu qabanay waanu ku guuleysanay hawshaasna waanu iska soo afjarnay waa ilaahay waa noo soo hawliyay geestiisana maayirka degmada Burco Sheekh Maxamed Muraad oo isna goobjoog ka ahaa markii ninkaasi la soo qabtay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa dhacay degmada shilkaas ninka geystay ee loo tirinay waxa ahaa ninka la yiraahdo Maxamed Axmed Xirsi marxuumka ama qofka loo tirinayay inuu dilka u geystay isagu waa gabadhiisii oo ahayd Farxiyo Daahir Aadan. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ciidanka booliska ayaa marka hore Ilaahay baa mahadle mar labaadka ciidanka booliska ee degmada iyo qaybta ayaan kala qaadinbe ayaa waxay ku mahadsan yihiin inay Ilaahay u suuro galiyay inay gacanta ay ku soo dhigaan ninkii falka lagu tuhunsan yahay inuu isagu geystay oo ah Maxamed Axmed Xirsi waa kan imika halkan fadhiyo warbaahinta yani sawirkiisa ay qaaday. Caaqil Xasan Dhuuxiro oo kamid ah cuqaasha gobolka Togdheer ayaa isaguna geesiisa sheegay inay tacsi u dirayo ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxday marxuumadaasi waxaanu tilmaamay in loo baahan yahay in si nabadgelyo lagu soo dhameeyo falkaasi foosha xumaa ee dhacay. oo Bashiir Ibrahim Universal TV Burco.